kulanti wanaagsan mar kale iyo ku keen xabsi ku soo meel kasta waa naga daawanaysaan ramadaanka markii laga baxo subxaanallah waa aragteen aniga horta jikadan ka dhamaan lahay idinka ma ogi jikadan ka dhamaan lahay gabdho badanna waa ii soo qoreen waxay dhaheen xabsooy ramadaanka laga baxay oo biis aan noqono marka ramadaanka laga baxo macmacaan ha dhihin wax aan daynayno dhinacana soo maro male waxaa yiri I'm guilty for that marka isku doonaan wada saaranahay marka maxaan sameeyaa aniga waxyaabaha aan sameeyo aydan tusaaya waxyaabaha aan maaragtay naftayda aan ku hormariyo waxyaabaha aan isaga ilaaliyo inuusan maaragtay miisaan ifuulin xataa marka haddii aadan rabin inaa iscaatayso waxaa muhiim ah maaragtay because caafimaadka dartiis in aan maintain garayso miisaankaaga intuu yahay yani inaad ku hayso miisaankaaga intuu yahay oo maaragtay aadan kor uga kicin dadka dhan inay iscaatayaan ma rabaan laakiin groupkii raba inay iscaatayaan sidaan waxba isaga ridi karaan groupkii aan rabin inay iscaatayaan kooda ay maaragtay inta miisaankooda ay maintain garayn karaan oo sidii uu maaragtay ay jeclaayeen ay ku hayn karaan marka waxyaabaha aniga aan samaysto wixii markaan soo kaco quraacda aada muhiim igu ah quraac fiican haddaa cunto quraac fiican markaa cunto maalinka diyaara oo tahay maalinka waa face garayn kartaa maalinkii maaragtay waad wajihi kartaa waa ka hortegi kartaa marka waxyaabaha aan sameeyo subaxii quraacda waxaan cunaa ukun maaragtay aday kugu fiican tahay haddii maaragtay dhinaca caafimaadka aan dhakhtarka kuu diidin ukuntaasaan cunaa ukuntaas masaaka insha allah waxaan ka sameynayaa pancake siyaabo kala duwan oo samaystaa ukunta laakiin maanta waxaan ka sameynayaa pancake aada u fudud qof kasta uu sameyn karo mishaari iyo yoogar aaday u fiican tahay marka quraac aniga aada fuul ahaan cunaa oo yacni aada u badan subaxi maxaa yeelay qadada muhiim maaha qadada haddaan tufaax cuno haddaan biyo cabo haddaan ansalaato cuno wax yar ama okay inta maalinka ka dhiman hadhow markii casar gaafkii la gaaro cabitaan la shiidanaysaa wadanka markii galabtii lasoo aruuraa cashada la karsadaa dabcan waa ogtihiin maxaa yeelay iskoolla iyo shaqay waxaase lagu kala maqayaa marka reerka isku yimaadaan wixii maalinkaas la kariyo ma fiicno in maaragtay wax dhan aa iska dhuun qabato maxaa yeelay haddaa iska dhuun qabato waxaa dhacayso in hal mar haddana wixii oo dhan maaragtay aa cunto marka waxaa fiican wax yaryar marka maalinka reerka wixii aa u kariso aad inta badan saxanka ansalaato iyo qudaar intaa uga shubto wax yar ka guran kartaa biyo badanaa cabtay caloosha waaba buuxsantayba marka soonka maadaama uu discipline yahaba oo bil dhan aan soo soomanayn oo maaragtay aan baranay waxyaabaha aan samayn karno iyo waxaanan samayn karin I think inaan samayn karno saan insha allah baaquliga baastada soonka hadda almost 10 beri waa kasoo wareegatay marka insha allah baaquliga baastada iyo keeg iyo macmacaanka aniga ayaanta reero macmacaan mihi laakiinse meelaha macmacaanka leba isku arkaadano meel kasta macmacaan laga gado waa taagnaa 10 beri ugu dambeysay marka waxyaabahaas oo kaleeto waxaa waxyaabaha lagu garto qofka inuu soo cayiilaayo astaamay u tahay marka insha allah jiimka ha lagu noqdo banaanka ha lagu socdo maaragtay wixii aa cunaysa maalinkaas balangaree oo waxaa samaysaa caagi yaryar inta ansalaatada ku shubata ansalaatada maanta anigaan samaysanayo kooskaan kasoo gado diyaar waaye markaad waqti haynin oo kale ansalaatooyinka diyaarka soo gado aada u fududahay shaqakaaga ma baahno waa cunaysaa saxanka unbaa ku shubaysaa waxeediiya wadatinka tagto muhiim waaye inaad socoto muhiim waaye biyo badan inaa cabto muhiim waaye biyo badan hadaa cabto marka waxyaaba badan daaqatay ka baxayaan marka biyaha badsado insha allah cabitaanada hala badsado marka daawasho wanaagsan wixii taliya tusaalaana hoos ku reeba daawasho wanaagsan asxaabey soo dhawaada subaxii wax lagu bilowdo afkaaga waxaa ugu fiican shaax kulul ama biyo kulul maasha allah dheefshiidka caloosha u fiican tahay marka subaxii shaax kulul ku bilowda haddaa awoodaan markaas kadibna insha allah quraacdiina oo fuul ah isku day inaa cuntaan maanta marka waxaan rabaa inaa idin tuso pancake fudud oo maaragtay wax burana aan ku jirin waan sameynayaa waa xabadaas mooska ah iyo xabad ukuna qorfo yaraa ku darsan kartaa aniga vanilla maanta haystaa vanilladaasaan wax yar ku darayaa maasha allah waxyaabaha ukunta aada u jeclahay subaxi maxaa yeelay waa ku dharjinaysaa maaragtay maalinkaas oo dhan baahi ima qabato aniga kolba markaan ukunta cuno vitamin D bay leedahay oo maaragtay noo fiican kii qoraxda laga helaayo marka maasha allah subaxii ukunta aan jeclahay marka haddaa ukun jeceshahay dibis hab kaleeto aa u samaysan karto si aada u fudud birtaa kululeysanaysaa sida cansheeradii oo kaleeto qaadaa qaadanaysaa ama sidiisaba ugu shushub haddaad doonto mashiin uma baahnid fargeeta ku jijibin kartaa mooskaas iyo ukunta waana samayn kartaa it's really easy waayo macaantahay maasha allah malab ku cun haddaa dadka macaanka jeclaatahay haddii kaleetana sideeda maxaa yeelay mooskaa macaan marka aniga wax macaana dhan isagama daraayo laakiin maple syrup iyo malab iyo wixii aad doontaa ku darsan kartaa
waa isku dhamaataan ku leeyahay quraacdan maasha allah wax burana kuma jiro guduudka iyo quruxday noqotana waa arki doontaan marka quraacda fiican subaxii aad maadaama ay muhiim u tahay quraacda ha lagu dadaalo haddii aad rabto maaragtay especially dadka dhahaya waxaan rabnaa inaan iska ridno quraacda aad ay muhiim u tahay haddii kale habeenkii galabtii markii la gaaro adiga dhan maaragtay korontada kaa tagaysa gaaja ku qabanaysa dadka aan quraacanin maanta oo dhan jikada kama dhammaanaysid marka quraacda ha lagu dadaalo fiican wakaas qurux maaha kalar qurux badan maasha allah waxaan kaloo ku darayaa maanta aan maaragtay aan ku cunayaa maxaa yeelay intaan is not enough waxaan kaloo ku darayaa Greek yogurt aan haystaa Greek yogurt oo maaragtay maasha allah aadna ugu fiican lafahana kuu adkeynayso especially qof dumar ah haddaad tahay waxyaabaha maaragtay lafahaaga adkeynaya hadday sport ahaan lahayd ama exercise yacni ama yoga hadday ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd bacaanaha iyo waxyaabahan maaragtay inaa isugu roonow Greek yogurtkii waa kana baakadaas waxaa ku jira lowsas kala duwan iyo sabiib iyo chia seed iyo la isku daro korkaan ka saaranayaa waxaan kaloo gees ka saarayaa mishaari cayriin ah sideeda ah mishaaridan waaba iska karsan tahaba geesaan ka saarayaa lowsaskan kala nooca iyo chia seedkaasaan halkaas ka saarayaa maasha allah waa isku dhammaatay quraacdeedaas fuul soo maaha maasha allah wax yar kadibna iyo koobkii shaaxa ahaa wax yar kadibna biyo iyo tufaax biyahayga barafaan qaar kasii dhigtaa markaan la saacad joogo camal waa kaasaa biyahaas barafka ah iyo tufaaxaas xoogaha yara haddana joogtay ansalaato diyaar hadday kuu taallo ansalaatadaas diyaarka kooskan kasoo gatay waa kale iyo kaabash iyo waxyaabahaas la isku dardaray sabiib iyo ujeedaan sunflower seed iyo maasha allah waa iska diyaar iyadana taasaa cuntay exercise-kaaga noloshaada raacatay waqti naftaada sii exercise samee si maaragtay reerkii oo dhan iyo aad wax ugu qabato naftaada waqti yar sii maalintii maasha allah adiga xataa habiyaa dareemaya haddaa xataa soo socoto waqti xataa haddaa wey soo socsoco waqti sii naftaada insha allah maasha allah markaasaa reerka wax u qaban kartaa markaa naftaada wax u qabato marka dee hadday aad rabto inaad iscaatayso waa laga marmaan in maaragtay aad exercise samayso cuntada iska goynaa keliya waxba ma tarayso qasab waa exercise marka wax exercise samee xataa maaragtay xaafadda kusoo dhex socsoco gurigaa kusoo noqotay galabtiyaa la gaaray salbukadan videogeeda mar hore aan soo geliyay waa salbuko cajiib ahaan ku leeyahay ansalaato laga dhigaayo weygii mar 3 beri 4 beri maraa samaysan kartaa caag ku shubo haddaad rabto inaad iscaatayso waxaa qasab ah inay wax maaragtay firinjeer kuugu jiraan oo ay diyaar kuu yihiin markii maaragtay korontada kaa tegi rabto aad soo baxsatid oo aad cuni kartid aaday muhiim u tahay fruit iyo vegetable iyo waxyaabahan oo kale digiraha ka samaysan marka insha allah videogaasna fiirsada hoos uu ku qoran yahay wixii taliya tusaale ah hoos ku reebo khayr iyo barako snapchat-kayga kaasa snapchat iyo waxyaabo badan aan soo geliyaa maasha allah assalaamu calaykum